كلتو عن صاحب بيال كسو دوادا مانتي برنامج عن ربو إن كل وداعو فرق جودة هي شقوينك مركل إيجو أفريقيا iyo Asia ama qaliijka oo ah meeshii aan marka horeba ka imid mudane aan ka soo shaqeynayay iyo shaqooyinka Europe qaasatan dalkan Austria oo aan indhi waxa jirta siyaabo kala duwan ama nidaamyo kala duwan oo loo shaqeeyo wadankani marka la eego si loo eego qaliijku ama wadamada qaliijka way ka fursad fiican yihiin wadamadan Europe waayo waxaad arkaysaa in badan oo Soomaali dhalinyaro ah ee wax ku soo baratay dalalka Hindiya Pakistan mataqaanaa China oo fursadoodii iyo waxbarashadoodii iyo shahaadooyinkoodii ay shaqeynayaan isla markaana ka shaqeynaya meelaha xafiisyada dawladda bunuugta ama bangiyada iyo meelo kale oo aad muhiim u ah oo aad ku arkaysid gabdho iyo wiilal oo Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya tusaale ahaan isbitaalada ugu waaweyn qaliijka sida iyo qadar waxa ugu badan ee ka shaqeeyo waa gabdho Soomaaliyeed ee naarsi ah ee wax ku soo bartay Hindiya Pakistan Europe America Canada oo intooda badan shaqaale laakiin markii aad timaadid wadamadan Europe way ka duwan tahay shaqadii lagu qaban jiray Africa ama Asia oo waxaad arkaysaa dadka shaqooyinka ugu badan ee hayaan waa shaqooyinka low category ama shaqooyinka hoose markii aad weydiisid ama aad u kurgashid oo dadka awareysatidna siyaabo kala duwan ayay u macneynayaan haddaba waxaan sameeyay baxthi ama research kusaabsan hay'adda shaqada iyo shaqaalaha qaabilsan bal inaan tago oo horta sharaxaad guud aan ka siiyo guud ahaan Soomaalida meel walba joogan gaar ahaan dadka reer Austria ama dadka reer Europa isla markaana aan wax ka iraahdo bal shaqooyinka iyo qaabka ay u shaqeeyaan dalkani waxaan tagi doonaa IMSta ama Arbats Market Service waxa la yiraahdo isla markaana waxaan idin ka siin doonaa warbixin ku saabsan bal qaabka ay u shaqeyso sidoo kale waxaan idin tusi doonaa systemka loo sahlay dadka shaqaalaha ee loogu talagalay inay ka faa'iideystaan positionada ama meelaha cusub ee la soo dhigo walow ay yar tahay Soomaalida ku dhaqan guud ahaan Europe ama qaasatan dalkan Austria dad ku shaqeeya professionally ama ay ku yar tahay dad ka shaqeeya xafiisyada dawladda ama isbitaalada inta badan dadku ay ka shaqeeyaan logistic companies-ka waxa sidoo kale ila socda oo aan socdaalkayga ugu weeliya Cabdiqani oo kamid ah dadka deegaanka Austria isla markaana aan ka wareysan doonaa bal qaabka iyo nidaamyada ay u shaqeeyaan dhalinyarada ila socda صاحب يال وحن سو غاري غوبتي IMS waxa laga soo gaabiyay Arbats Market Service oo ah meesha shaqada iyo shaqaalaha ee laga xukumo dalkani
xaruntan IMS-ta waxyaabo fara badan ayay qabataa haddii alle idmo waan idin sharxi doonaa oo waan idin sheegi doonaa markii aan leenahay IMS kulli dabcan wixii laga soo gaabiyay ama waxa ay tahay waan idin sheegay waxaan rabaa marka inaan su'aalo ka weydiiyo oo aan wax ka wareysto Cabdiqani oo in badan wadankan ku noolaa isla markaana aan rabay inuu sharaxaad guud iga siiyo bal sida ay tahay qaabka loo shaqeeyo iyo mataqaanaa iyo kombiyuutaradan iyo sida loogu shaqeeyo iyo fursadaha inta badan dhalinyarada waxay qabtaan Cabdiqani waad maasan tahay fursadaada qaaliga waxaan rabaa inaad warbixin iga siisid bal nidaamka ay u shaqeeyaan kombiyuutaradan iyo systemka bal inaad warbixin naga siiso ayaan u baahnaa adigoo maasan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورياندوس أبا كل سلام يا وأنا كل فرح سنة هي إن ما أنت هالكن عبد القدس بوقتيد أنا وكاك دوين حرونتن سلاد سكتة حرونتن وحرونت جود شغالية شغالها قبل سنة مجاردن دقمة كستانو حلا ذي حرونتن وكله أو قبل سنة ساسو كله شغالها لوجو تلقاي مركا حرونتن وحي قبل سنة قف كستو شقية هالكن يمكن دوين شيء هي قف كستو أو شقة هاي المركانة inta uu shaqo helayo halka baa lacagta siinaysa iyada siinaysa masariftiisa marka halkan waxa ku fiican tahay oo kale qofkii soo gurigiisa jooga ay shaqada u keenayaan oo leen hoo shaqadan galmadaad bilcamal tahay way ku keenayaan iyaga ku raadinayaan inaad fadhiisan baa loo baahay wadanka nidaamkaas ku shaqeeya waa shaqada badan dadkana shaqeeyaan baa loo baahay qofna inuu fadhiisto lama baahna sidaa daraadeed halkan waa xaruntaas hawshaas ay qaabilsan tahay kombiyuutaradan noo muuqda hadeertaan maxaa lagu qabtaa tusaalahaan kombiyuutarada xagga ka muuqda ee halkan yaala iyo kuwa kale halka dhinaca kale yaala way badan yihiin kombiyuutaradaasi waxay qaabilsan yihiin intuu qofku u tagi lahaa qofka magaranaysa ka mas'uulka ama waxyaabaha soo kale inuu isagu soo galo oo shaqo alaala shaqadu doonayo iyo meel alaala goobta jecel yahay oo bartan ka agto ayar dhatay waraaqdii buu sameeyna shaqadii uu dooranaya waraaqdu ha la baxaya kadibna ama intuu eego uu online ha ku xariisanay ama uu la tagay meesha doonayay shaqooyin ka banaan ee kamida guud ahaan wadanka iyo halku jeceliba kombiyuutarka ka baxaysa waqti qofku markuu shaqada ka soo fadhiisto intuu shaqo kale ka helayo meesha laftirkeeda ma mushaarka ayada ma siinaysa mise wax kala qaabilsan ma waaxdan baa qaabilsan qofka haduu yahay shaqaale si fiican waaxdan waa waaxda shaqada iyo shaqaalaha si fiican meelo kale oo waxa marka shaqad shaqeynaysi waa ka soo fadhiisatay inta shaqo ka helaysid iyaga lacagtiiba ku sinaya laakiin se waad fadhiisaneen ba sababtoo ah markiiba iyaga ku keenay shaqadiiba available ah meesha shaqada goolkan ku badan waa gartay cid fadhida ma jirto marka degdeg baa u tagaysaa waxa laga yaabaa qofku markuu shaqo ka fadhiisto kale sida dumarka kale markay xaamilada yihiin ama ay nuujinayaan waxyaabahaas oo kale markaas oo kale iyagu fadhiistaan laakiin rag markaa tahay markaas oo shaqaynaysaa waa shaqadiiba available waa gartay ku waajib Cabdiqani waxaan rabaa inaad sidoo kale bal warbixin naga siisid marka ugu horeyso adiga saaxiibka dabcan meel baa u socoteen oo maleena waa idin joojinay waxaan ahanay bal fursadna yarnasi maadaama raggii wadanka aan ugu nimid aad tihiin adiga saaxiibka waa kaga mahad celinaya waxaan rabaa Cabdiqaniyow inaad warbixin iga siisid aniga qaasatan qaliishka muddo soo shaqeynay qaabka loo shaqeynayo way kala duwan tahay xagga inta waxaad arkaysaa xagga bunuugta mataqaana bangiyada isbitaalada dad Soomaali fara badan oo si professional u shaqeynaya laakiin inta aniga aan joogay Soomaalidu way yar tahay Soomaali xafiisada ka shaqeyso bal qaabkee u shaqeeyaan Soomaalida shaqooyinka ay qabtaan iyo bal warbixin iga sii iyo shaqada ugu badan ay qabtaan iyo waxa ay tahay iyo sababaha keeni kara in mataqaanaa Soomaalida ku wad ma hasatay Rindos sabab badan baa jira si fiican guud ahaan horta markii waad wadankan Australia Soomaalidu ku yartay dhalinyarada oo badin waxaanay Soomaalidu si badan dadkii soo taariibay si fiican marka qof kasto de soo taariibay waxa jira nidaam ah qof markuu meesha wado oo ka soo reeyay origin waxba sheegay waxyaabo dadka dhibaato kana qofkii aqoonti leh ama heer jabaa yaa leeyahay shahadada iska qarso bala meel kale isku dhib deedna dhibaato gaxan wuxuu isku dhibay xabiya ayaa hor istaagaya taas ayaa ka taa dhotore inuu shaqo aan professional ah ku shaqeeyo oo shaqooyinka caadiga iska galo asigiyo aqoonteedii leh oo wax walba leh ka maamulayo soo ka aqoon badan oo waxaan uu kaasi u sheegay soo ga aqoon badan dawladdu wuxuu u sheegay inuu waxba garanaynin si uu helo markaas aqoonsi iyo wixii uu soo tahriibay oo dalkiisa uga soo hayaamay si fiican waa logic waa marka dadku taas u badan yihiin laakiin waxa jira qayb kamid ah dadka oo iyagu shahaadooyinkoodii iyo waxbarashadooda sheegtay loo bedelay deedna dadka waxbarasho shahaadooyinkooda kala duwan yihiin tusaale kale Soomaaliya kale shahaadooyinkooda lama aqoonsana haddana waa lagu tixgelinayaa wadamada kale ee Soomaaliya meel kasta waa caalam kamid ah sida Malaysia kale India kale Ethiopia
kale shaariyo kale loo qorsiyay si fiican walow Afrika waliba hoos hadiya jeer aan aad loo qorsanayn si fiican haddana wadamada kale waa qorsiyeen marka qofka waa laga qaadaya shaaridiisi xarun baa jirta shaariyo ku shaqo leh waa la tixraacaya wixii haday saxin waa leegaya kadib loo tixgelinayaa waxa la sameeyaa in la yiraahdo qofkaas professional ku lahaa in shirkad kamida practical laga qalo hadduu ku soo baxo toos buu ka shaqeynaya dad badan oo ka shaqeeya jira Soomaaliya wata su'aasheed ugu dambayso aan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay gobolkan over Australia wuxuu ka mid yahay gobolada ugu shaqada badan aad wax soo saarkiisu marka laga reebo biraha waxyaabo kale oo wax soo saar leeyihiin ma jira horta marka koobaad baan wadanka Australia wadan iska shaqadiisu boqolkiiba 80 fiican tahay iyo xisaabkiisba waa wadan kala socda waa sida Jarmalka kale iyo Switzerland waa gartay marka wax soo saar aynu taaban karno shirkadda weyn ee Kotakun imaka shirkadda halka magaalada ku dhextala Kotakun ka shaqeysa si fiican waa shirkadda magaalada wax ku 200 iyada dhanba magaalada 200 baa ku nool waa gartay waxaan oran karnaa gobol shaqo guud ahaan gobolkana 1 milyan baa ku nool waa gartay laakiin hal shirkado kaliya ta konton ka shaqeynaya magaalada dhexdeeda halkaas marka waxaad arkaysaa wadanka magaalada gobolku iyo gobol shaqo marka shaqada warbaahinta laakiin way kala duwan tan waa bir shaqada ku sheego Kotakun shirkado badan baa jira oo 10,000 wax ka yar 5 marka Soomaalidu inta ugu badan shaqooyinka ay ka shaqeeyaan marka majority marka aan fiirino 90% maxaa oran kartaa horta Soomaalidu meel aanay ka shaqeynto ma jirto laakiin waa loo kala badan yahay waa sax waxa loo badan yahay shirkadaha logistiga shirkadaha magaalada darawaliinta tagaasida waxyaabo noocaas xagga baabuurta way badan yihiin xagga baabuurta iyo waliba shirkadaha caadiga waa sida qaliijka kale aad baad u mahadsantahay saaxiibkay Cabdiqani aad baa u mahadsantahay waalaikum salaam Cabdiqani wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan gobolkan over Australia isla markaana muddo ku nool wadankan oo aan ka wareysanayay bal qaabka ay u shaqeeyaan dadka waxaa jirta inta badan sida uu hadalka idinkaga dhawaajiba dhalinyarada iyadoo aqoonteedii leh isla markaana khibradii leh muddana ku soo shaqeeyay ama ka soo shaqeeyay shirkado fara badan in marka uu qofku yimaado si uu u helo sharci wuxuu u soo tiigsanayay oo dhibka iyo rafaadka uu soo maray si uu u helo sharci ayuu wuxuu sameeyaa inuu inkiro shahaadooyinkiisa waxaad arkaysaa oo hadda ka hor qisal ila wadaagay kamid aha gabar mastered heysata luqadda Englishkana ku fiican waxna soo baratay in ay tiri wiil ii turjun isla markaana wiilkaas uu yiri qof aqoon-yahan ee luqadda Englishka taqaana tahay turjumaanka u baahan tahay maxay tahay wuxuu sheegtay inay dawladda iska registreysa inaysan waxna qorin waxna dhigin waxna akhrin taasina waxay ka mid tahay sababaha ugu badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay ee ugu shaqeeyaan unprofessionally وانا سامين جود كودا يلتي دمان سوماليدا مeel walbay joogan Europe waa walaalkiin wariye Indos oo maanta barnaamijkan idin kula tala galay inuu idin wadaago inta barnaamijka aan ku kulmi doono hadii Allah awoodo idmo waxaan idin kaga tagayaa saaxiibayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته